ama sodohdiisna ay la nooshahay kuna faraxsan cadceedda inuu taagnaado maxaa noloshiisa ka ogtay waxaa noloshiisa ku kalifaysan wadankiisa uu difaaco $100 sheegta in konton la sii xaq buu leeyahay because wadankiisa wadan shisheeye buu wala ag haddaad doonaysa inaad ka hadashid shisheeyaha wadanka jooga caawa dhan ka hadal anigu waxaan ka hadlayaa askariga Soomaaliyeed ee duruufta adag ku shaqeynaya ee difaacayay baarlamaanka isagoo rasaasta ridaya xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta iyo qaranka Soomaaliyeed difaacaya ku geeriyooday inaad tiraahdo waa caada qaata qabyaalad buu wadaa $50 buu istaahilaa adiguna aadan ogolayn 1B inaad ku shaqeysid ama safari aad ku shaqeysid Soomaaliya tagtid soo kuma fududa inaad adoo Holland jooga ka dhagaxaysa halka have a nice day waxaan ku sheegay ma taqaana labadaas nin mid ku khalmaan baan ku leeyahay waxaan rabayna $1 in la sii uu istaahil yahay hagaag adigu $1,000 jeebkaaga ka sii waana mahadsantahay thank you qayb qaadashada barnaamijka hagaag waxaan ka raali gelinayaa ciidamada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gobol walba iyo magaalo kasta Soomaaliya hadda tahay tuuto xiran tahay ama booliis tahay dhagaxyadaas ama aflagaadadaas oo wadaadkaas in kula kacay waan ka raali gelinaynaa waxaan jecelnahay inaad dagaalka sii wadaan dadkeena iyo dalkeena difaacdaan duruufta adana oo dul qaadataan dhul aan dhiig u daadan iyo ciidan dhiig u daadan iyo calan shisheeye inuu kugu difaaco waxa ka wanaagsan askariga Soomaaliyeed inuu ku difaaco xabad iyo labo qabyaaladu ay ku jirto ama dhibaato kala wadana meel walba ay dunida ka dhacdaa daraad bay hay'ad askari ka tirsan ciidamada Ingiriiska oo dhowr kun oo baan qaato bishii in la soo istaajiyay because of corruption sida awgeed waan idin raali gelinaynaa and I salute you